ciwaanka maqaalka ujeedaan waa ayadoo diblomaasiyiinta ay wada hadlayaan Pentagonka wuxuu u diyaar garoobayaa suurtagalnimada dagaal lala galo Iran. Maqaalkan waxaa daabacay New York Times muddo hadda laga joogo kule maqaalka markaa duubayo saacad ka hor oo maqaal aad u xiiso badan oo si fiican u bayaaminayo dagaalka soo socdo ee Mareykanka iyo Iran. Waaya maqaalka wuxuu leeyahay oo uu cadeynayaa in markabka ee qaado diyaaradaha adduunka midka ugu weyn Gerald Ford la dhaho waa midka ugu weyn Mareykanka oo dhowr boqol oo diyaaradood aad saari karto iyo kumanaan kun oo askar waa hadda midka ugu weyn waaye ayaa kasoo dhaqaajiyey Mareykanka wuxuuna kusii socdaa dhulkaas iyo bariga dhexe markii Gerald Ford markabkaas la diro hore meesha waxaa usii yaalay Abraham Lincoln markab kaloo asagana aircraft carrier agoror meesha yaalay midkan waa midkii labaad ee la diro waana midka ugu weyn dunida ciyaar looma diro marka maqaalka waa dul maraya horta marka hore maqaalka waxyaabaha uu aad u tataabanayo kuley waxaa ka mid ah Donald Trump in waagii mudaharaadyada Iran ay socdeen inuu yiri Trump waa idin soo socdaa oo jidka ku soo jirnaa asagoo la hadlaya dadka mudaharaadaya reer Iran oo uu leeyahay waxbaan sameyn doonaa ama duqeyna geysanina wax noocaas oo kale Trump waxa u yeeray qolada militariga qubarada militariga Pentagonka u yeeray oo yiri u kaadi Iran sa u maleynaysid ma aha waa idin duqeyna waa idin ka soo laabana Iran waxa ka go'an in ugu yaraan 11 dal oo Carab ah oo Mareykan saldhig ku leeyahay ay burburin doonta oo tii hadda ka hor Israa'iil kulay 10 laga bartay bogtahay waa tii gantaalada Iran ee soo tuurtay qaarkood la qaban waayay ama la soo ridi waayay marka Trump waa loo aqli celi yaa u aqli celinayo militarigiisa oo aqli celinayo waxay leeyihiin handadaada oo aan leedahay caawa in soo weerar jidka ku soo jiraada xogaa dib u tag waxaana siisaa waqti aan u diyaar garowno dagaal culus sida kii hore oo kale oo laba bam lagu dhuftay Iran laga soo laabto ma soconayso marka siimada daali maqaalka saasa ka dareemaysa adiga akhri siimada daali oo diblomaasiyad iyo wada hadal iyo isku kan Canada la ku sii wad Iran marka maqaalka wuxuu leeyahay qolada militariga Mareykanka Pentagonka Trump waxay ku leeyihiin adiga diblomaasiyadda meesha ka sii wad annagana dagaalka iyo abaabulkiisa iyo diyaar garowgi ayaa galinaa waa tii la diray markabka weynaa Abraham Lincoln oo uu hadda joogo meel aad iyo aad ugu dhow Iran waa tii markabkaas ay la socdeen maraakiib kale oo aad u tiro badan iyo gujisiyada nuclear-ka xitaa xambaaro adiga F-35 wax uusan reeban Mareykanka haddana waa tuu armaado labaad soo diray maraakiib kale oo tiro badan diyaarado dagaal waa tuu diray hadda muddo laga joogo 2 isbuuc haddana markabka weyn ee Gerald Ford ayaa socdo marka maqaalku wuxuu leeyahay waxyaabaha u qorsheysan oo miiska saaran oo Trump lagala hadlay ama lagu qalqaaliyay Trump inuu aqbalo waxa ka mid ah in ciidamada commandoska sida kuwii soo qabtay Nicolas Maduro Venezuela ciidamada aad u tababaran in aaga la geeyo si dagaalka markuu qarxo ciidamada u tababaran inay xariga ku soo daataan oo qoorta ay ka soo qabtaan ama guri ugu galaan ay dilaan adiga ciidamada u qaabilsan asaasinada markano dirbi ka boodka ciidamadaasna waxaa la yiri Trump heegan gali ayagana waayahay maqaalka waxyaabaha kale oo uu leeyahay waxa ka mid ah si Iran marka la weeraro Iran weerar celis soo qaadaysa gantaalo far badan soo tuuraysa marka annaga Mareykan hadaan ahay uu leeyahay maqaalka uma diyaar garo yani uma diyaarsanin in aan iska difaacno gantaalada kumanaanka ah iyo droneska aad ku tirada badan Iran ay soo tuurayso in la dudumino la burburino marna anagoo daldadow dhex fadhin Kuwait ka mid ah Iraq ka mid ah Syria ka mid ah Jordan ka mid ah Bahrain ka mid ah Qatar ka mid ah Imaaraat Carab ka mid ah Sacuudi ka mid ah intaas oo asli ugu leeyahay Mareykanka marka waxay leeyihiin waa qolada militariga ugu Trump la hadlayo waxaan rabnaa in aan difaaca cirka dal walba aan dhex dhigno dalkan Carabta 11 dal maqaalka sida ugu jeedaan 11 dal oo bariga dhexe ah ina difaacyada nidaamka difaaca cirka aan dhigno oo aan diyaar gareeno markii hooshaas oo dhan la rakibo ciidamada meesha la geeyo labada markab ee waaweyn Gerald Ford iyo Abraham Lincoln meesha ay yaalaan kadib dagaal hanoo ahaato Trump adiga wax ka rabnaa madadaali oo wada hadalka iyo meesha ka sii wad shaqada markay meesha joogto laba maalin ka hor waxaa aqalka cad ku kulmay
Trump iyo Netanyahu kulli Trump markuu kulanka soo dhamaaday wuu hadlay wuxuu yiri kulli wax heshiis aniga ninkaas kama gaarin arrinka Iran wada hadalkeena noo sii soconay Trump baa mugta anigana muuqaal ka soo diyaariyay aan dhahay shakadan ama waa qiyaano ama Trump waa cabsan hadda waxa ay kala cadaatay in Trump madadaalis ay ka tahay waxa soo dhan asaga iyo Netanyahu wax ay isla fahansan yihiin dagaalka soo socdo in la isla fahansan yahay ayaa boqolkiiba kulli cad halka markay joogto Trump moogtay asaa isbaxray afkiisa asaa isku baxray maantadaan uu hadlay hadana waa kan Trump oo hadlay oo leh Iran wada xaajood waa kala daal ma kuwan wada hadal ma galaanba macna wax laga caajis laga daal weeyay have a situation right now where we sent a very big carrier group to Iran. I'd love to see if we could make a deal. They've been difficult to make a deal. I thought we would have had a deal last time. They wish they did. halkaas markay joogto marka kulli Iran doqon ma way u jeedaa Mareykanka soo gurguurinayo isdhisaayo isdiyaar gareenayo difaaca cirka sii dhisanayo diyaaradihiisa soo degaayo habeen iyo maalin wixii Ingiriisku u jeedo Mareykanka Ingiriisku wuxuu ku leeyahay saldhig military wixii halkaas yaalo diyaarada ahayo dhan waa la soo raray bariga dhaxal keenay Jarmalku wixii yaalay nus waa la soo raray Djibouti waa la raray bariga dhaxal isugu keenay Mareykankana way ka baxeen هذا إيران تهي عاوة يعني أضيق قامني وحانو دم وجهي وذا حاجة الله ترامب إني مدد على كتاي كل يوم أركض أنا مركز كذا أنت أصلا سكر تلي ربي إني ذيك توجي